munaasabada lagu dhagax dhigayay jaamacadan cusub ee laga hirgelinayo magaalada Cadaado oo loo bixiyay jaamacadda bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Ximan iyo Xeeb qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kumanaan arday oo ka kala yimid degmooyinka Ximan iyo Xeeb. jaamacadda waxaa hirgelinaya mu'asasada waxbarashada Iftiin iyadoo laga dhisayo waqooyiga magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb, waxaana dhagax dhigeeda kadib halkaasi laga soo jeediyay hadallo ku aadan munaasabada. gudoomiyaha mu'asasada waxbarashada ee Iftiin Cusmaan Macallin Xasan ayaa sharaxaad ka bixiyay kuliyadaha jaamacadan lagu bilaabayo markay dhismaheedu soo dhamaado. waxaa sharaf noo ah maanta inaan isugu nimid meeshaan xafladan qiimaha badan oo taariikhiga ah. jaamacadana sidaad magaceeda ka arkaysaan waa jaamacad u dhaxaysa Soomaaliya oo dhan. jaamacaddu waxay ku bilaaban doontaa kuliyado oo 4 ah. kuliyadahaas oo kala ah kuliyada dhaqaalaha, taas waa faculty-ga koowaad. faculty-ga labaad insha Allah taala waxay noqon doontaa education oo ah tarbiya iyo kuliyada shariica wal qaanuun ku bilaaban doonta insha Allah taala. kuliyada saddexaad oo kalena waxay noqon doontaa kuliyada la yiraahdo faculty of nursing oo ku bilaaban doonta nursing, qualified nursing inay soo saarto iyo midwives inay soo saarto. kuliyada afraad waxay noqon doontaa IT information technology kuliyada ugu bartay ay noqon doontaa